أدا روحي يا الرحمن أدا روحي يا الرحمن رحمن حريص كنتي دبع سني ربي كوكو سدي رحمن أدا روحي يا الرحمن أدا روحي يا الرحمن رحمن حريص رنتي دبع سني ربي كوكو سدي رحمن رسمي بدايها ربدا إجمدا كل الراعة كل رياقي رسمي بدايها ربدا إجمدا كل الراعة كل رياقي martida sharafta leh ee halkan isugu timi maanta halkan aynu ku dhidbayno meherka maxamed sheekh cali iyo sucaad faarax dawaare run ahaantii marka horeysa waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad waxaan aad ugu mahadnaqayaa dhammaan intiinan maanta ka soo qayb gashay xafladdan oo runtii anigoo ka wakiila arooskii aroosadda aad iyo aad baa u mahadsantihiin maadaama aynu ummad islaama nahay marka horeysa waxaanu ku furaynaa aayadii qur-aan kariimkaha waxay noo akhriyaya saalax أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم إلهي نوغا أنفعو آياتها القرآن الكريم كا سينو دي هربا نيدي هلكن waxaynu isugu nimi maanta meherkan quruxda badan leh maxamed sheekh cali iyo sucaad faarax dawaare inaynu halkan ku unkano guri islaama aynu halkan maanta ku bilowno marka maanta waxaan horta aad u salaamayaa cuqaal iyo maayirkii ceergaabo iyo waxa jooga salaadiin badan mar labaad aad baan u idin salaamaynaa waana mahadsantihiin marka hadda waxaynu bilaaban doonaa hawshii meherka oo ta ugu qiimo badan ee meesha u nimi ah runtii marka waxaan ku wareejin doonaa xagga inanka oo qur-aankii allah inoo aqbalo ducadana allah inoo aqbalo waxaynu halkan isugu nimid sidaa uu sheegay xidhiidhiyuhu arooskaas ama tiirkaa tiirarka islaamka ka mida dhisidiisa ayaynu isugu nimid alxamdulilaahi rabbilcaalamiin aad iyo aad baan si gaara usii faraxsanahay anigoo xaggii inanka odayaashii xagga ah xagga kalena qaraabadii kale ay tahay aan furayo ilaahay baa mahadle sidaa awgeed waxaan doonaynaa inaadna siisaan sucaad xaaji faarax dawaarle weliba naanaystaan raacinayaa oo aanu u doonayno maxamed sheekh cali aanu u doonayno inaadna siisaan meherkana noo raacaysaan weliba hadalka inta kale way noo dambaynaysaa الحمد لله الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا فأصلي وأسلم على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقول هذا يا مقع بقرة هلك فردية مايركا مدح dhaqameedka kale komishineerka xildhibaanada aqoon-yahanada culimada dhammaan safka yaga xagga reer ahaana garxaajis habar yoonis muuse ismaaciil waxaanu idin siinay simug iyo milgo iyo maamuus leh inanta ayna weydiisateen ee magaceedu uu yahay sucaad faarax maxamed oo aad qabiil ahaan ugu weydiisateen
قر أهانا أودون إنسان محمد شيخ علي حسن واند سين بسم الله الرحمن الرحيم أدوم هسنتين ونوق دون إن محاكو رهاي أرنتا يدا وفيلين يسيك قروح بدن وعشان يتون مليون يصدق كونه دولار أو يرثورتيا حقنا دجيلشية هيري ووديالين هير مانتنا دحمران هير كانوا في عاد كوي هراء أي دلنا حتى عقالي يوديالا والصعدة إن محاكو رهاي هل كانوا وصدق يكونوا يرثورتي حقنا يبان عادي نقالنا ودقنا هاي وحل كودر وياه مهر كان نور راعي يبغر والله يدير راعي لي الله قاعد يقرأ ليلا وأذوق إلى العاقل كيف شغشدت هاي قرأ لنا ورير كوينا هبر قدير يهين أو سعد يهين أو رير هلولي يهين قرأ لنا مهر كيلو يدك إن وهاج إن هالك مركي مريسو وحين هذا وجود بيننا إن نكور جنو شيخة سو مهركو إنه قدوا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد سيدة وناكسن من القدلة لبدا قبل سوي ديستاني ننطن سنة السيان إلهي باكم هذا انت كبعدي كل وحا أين حردونا مهركي laba arrimood baa halkan laga rabaa koow haddii weligeedii joogo dee inuu mas-uul uu wilaayadii aniga igu wareejiyo ama isaguba meheriyo labadaba waa ansax marka haddii wilaayadii wareejinayo waxaa uu odhanayaa inanta Sucaad Faarax Maxamed oo aan ay weligeedii waxaan kugu wareejiyey inaad u guurisid maxamed sheekh cali بسم الله الرحمن الرحيم ولا لو ولاية إنت سعاد حاج فارح محمد أداك بريشي أنا وأنا أقبلي وحينو هراي قطب كلابات مهربات شراء إلى هاي حكومي هوينك إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. زوجتك سعاد فارح محمد على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمهر قدره $5,000 أمريكي. هل قبلت نكاحها وتزويجها؟ قبلت نكاحها وتزويجها. بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير. صوالد waxay yiraahdaan xilla ku raax xaqna ku raax waa kelmad sax ah xaqeedii iyo xilkeediiba waa kugu wareegay inanta ilaahay waxaan ka baryaa tabaaraka wa tacaala inuu isku kiin khayro oo awlaad barakaysan oo habliyayna mabale ilaahay idin kala siiyo kuwa islaasta ee isku raaga ee qoyska ku dhisma ee islaamnimada iyo iimaanka iyo Allah ka cabsiga ku noolaada Allah idin ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa tolkaas soo ururayna dhammaantood intan iyo intii dhashaba Allah cafiyo dambi dhaaf Allah siiyo dawladnimada meel ay joogtaba ilaahay ha inoo taabud yeelo ilaahay saasaanu ka baryaynaa khilaafka iyo sharkana Allah inaga dulqaado
xidid iyo xigaal kuwii reebo qoyskan allah ka yeelo ilaahay saasaynu ka baryaynaa soomaali meelay joogtaba ilaahay subxaanahu watacaala fidnada iyo mashaakilka ilaahay ha ka dhex qaado subxaana rabbika baaraka laka baaraka calayka halkaa waxaa ka dhaca khayr baa ka dhacay waxaynu ilaahay uga baryaynaa maxamed iyo sucaad inuu ka dhigo reerkii isku waara ubad khayr qaba kala hela ayaynu ilaahay uga baryaynaa aamiin dhaha markaa hadda waxaynu bal u leexanaynaa bal horta dee reerku inuu isbarto kolley inkastoo dee horena laysu yaqaanay oon laysku cusbayn marka haddana kolley laakiinse in wax laysweydiiyo waa muhiim waxaan marka u horeysa siinayaa gudoomiyaha gobolka maayer ismaaciil baan rabaa inuu hortaarka mid ka yidhaahdo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين halkan hadal badani ma yaallo waxaa yaalla waa duco ducadana shiikh bay noo dhameeyey ilaahay waxaynu weydiinaynaa inay isku barakoobaan ubad saalixana kala helaan dad isku khayr qabana ay dhalaan sidaa shiikh ku ducayay ilaahay naga aqbalo faatixa marba dhinac baan siinayaa hadda waxaan siinayaa caaqilka bal caaqil hadallada qabaa'ilka xoogaa waa laga yara badiyaayo in laga horeeyaan jeclaa laakiin maanta si gaar aan ugu faraxsanay horta marka hore wiilka iyo reerka waxaan leenahay baaraka allahu laka wa baaraka calayk wa jamaaca baynakum waa fii khayr ilaahay isu keen barakeeyo aniga milga gaara iisii leedahayoo wiilkana suldaankiisaana horta sidaa la sheegay waa nin habargidira waa nin hawiya waa nin habargidira waa nin sacada waa nin reer lowle ah xilliyada waad maqli jirtaan maanta taariikhda mar la odhan jiray reer lowle iyo habargidir mar bay abaasha habargidir iyo reer lowle taagnayd wiilka suldaankiisii baana dhinaca kalena xagga gabadhana waa ka soo jeedaayoo nin ceergaaba ah baana oo reer ceergaaba ah boqorka iyo dad badan oo deegaankaana aad baan ugu mahad celinayaa xilligii caleemasaarkayga inay ilaa iyo ceergaabo ay soo dareefgareeyeen oo ii yimaadeen arrintani waxay soo celinaysaa dhaqankii hore ee Soomaaliyeed mar hadda aanu gaalkacayo iyo idinsii marsiinayno iyo hobyo aan idinsii marsiinayno hiiraan iyo jawharna waxa weeye waa ku sii xejin doonaa bahasha marka FM-ta ha laga saaro kor ha loo soo qaado dhaqanka la soo celiyo anigu waxyaalaha aan ku faano waxa ka mid ah halkaas iyo hawiyaan asal ahaan ka soo jeedaa oo hawiyaan ahay hooyaday waa harti aabbahay harti baa dhalay oo majeerteen baana dhalay annaga hooyaday waxa dhalay muuse ismaaciil reer xaamud baa dhalay ayeeyday baa waxay tahay habar jecel oo reer yoonis ah adeeraday aabbahay la dhashay waa warsangeli hooyaday walaalaheed waa cabdalla xaamud bakaaraco xagee ku daraa awoowayaashayda kale dhulbahantaa dhalay waxaan ku faanaa inaan ahay mixid Soomaaliyeed dhaqanka saxda ah iyo nolosha saxda iyo Soomaalinimadii dhabteena taas ay ahayd maalin baan wiil baa gaari nagu qaaday gaariga markuu nagu qaaday 7 nin baan ahayn wada socota oo isku reer ah oo anigu aan hogaaminayo wiilkii waxaan ku yidhi adeer kolley reerka tay waa garanayaa ayaa ku reer abti ah markaasuu yidhi isla reerka reer abti ah markaasaan ku yidhi yaa ku reerayay markaasuu yidhi isla reerka markaasaan ku yidhi cid kale meel ma ka soo gashaa markaasuu islaan ayeeyday ah oo reer hebel la sheegay markaasaan waxaan ku yidhi wiilku da'diisu 20 ilaa 25 inta ka dhaxaysay ahayd waxaan ku yidhi Soomaali maanta Soomaalinimada inay sii dhimatay halkaas laga garanaya annagu 7 nin baan ku wada soconayo laba harti baa dhalay oo laba habar yoonis iyo habar jecel dhalay oo nin murusada dhalay 7 nin oo isku qoysana waanu ahay laakiin ana 7 ninba ugu da'yaraa markaas Soomaalinimadii hore waxay ahayd horta in dhaqankii iyo ilaa dadkan isku meelna waa ka soo jeedaan isku isirna waa yihiin isku dhaqanna waa yihiin ilaa iyo hadda tagto anu dugsiga sare waxaan kaga baxay baydhabo aan kaga baxay haddaad aragto Soomaali waa isku mid marka aan soo celino intaan FM-ka ka baxno maanta waxaad arkaysaa Hargeysa baa la sii kala qaybiyay cid kale iska daay habar magaalada waxa la leeyahay bari iyo galbeed bahasha hal la fidiyo FM-tan laga saaro guurka ceergaabo iyo gaalkacayaan maanta maraynaa xamar iyo Hargeysa ha noqoto jigjiga iyo Jabuuti ha noqoto guurku saas ku wanaagsan yahay aad waxaan uga mahad celinayaa
reerka aan garanaya iyo dadka aan garanaya ee madax iyo salaadiin maamuuskay u hayaan inay reerkan maanta la xidhiidaan ka soo qaybgalkoodaan ka garanaya annagana xaggayga iyo reerkan aan matelo si gaaraan weliba ugu sii sheegayaaye haddii laydin yidhi gabadhu waa reer ceergaabo oo laydin yidhi wayne xaaji faaraxde waa ree allah u naxariistee faaraxjada horaa dhala laydin yidhi ogaade ee waxaad ka guursateen amaad la xidhiideen waxa weeye meel qiimale weeyaan qiimaheediina waa hadhow waa laydinka rabaa marka labada dhinacba waan ahay labada dhinacna waan u hadlayaa reerkana waan u ducaynayaa wasala allahu calaa sayidina muxamedin wacala aalihi wasaxbihi waxaan u yeedhay hadda boqor maxamed axmed bal inuu kelimad ka yidhaha isagu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قف ولي يسوق مقام كيسري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام وحا كليبا ما أنت هالكن أين يسوقني حفلة مهركا محمد علي محمد شيخ علي يسعاد فارح محمد waxaa halkan ka furan oo keliya inaan uga ducayno oo ugu ducayno ducadii rasuulku yidhi baaraka allaahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakuma fi lkhayr wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد meel aan hadal baaqi ku ahayn haddii lagugu yar madkeeyo ku madkeyn baan dhiray annaguye adiga laftaada iska yar qajilayo qashaafaya oo ka qashaafaya hadashaba marka runtii annaga dhankanagan waxaa laalaya wixii ku habboonaa in la yidhaahba dee suldaanka ayaa yidhi runtii si caaqibo leh xaggeennana waxba ku harin baan u malaynayaa haddii ay ka tegi weyso marka hore sida loo sheegaba reerkaan u ducaynayna reerka horta allaha barakeeyo qoys reer marka la dhisayo anigu runtii guurarka waxaan ugu jecelahay guurka labada oodoodoo kala yar durugsan dhex mara ayaan ugu jeclahay waayo milgaha uu leeyahay iyo macnaha uu leeyahay ayaan wax ka soo arkay marka hore horta waxaan leeyahay reerkaasi reer labadaa reer xariiriya gabdhuhu waa safaarado waanu ognahaye allaha ka dhigo waa ku ducaynaynaa marka labaadna waxaan ka mahad celinayaa dee wax laysi siiyo oo inta layska soo doono laysi siiyo dad baa runtii ugu qaalisan gabadha sida maaragtay laabfuraanta aadii ka muuqato naloo siiyana waa aan ka mahad celinayaa dee xaggii barashada waxaanba ku farxay maanta runtii si aada reerka aan la xidhiidna inay ayagu noo abtiriyeen oo aan nalagu kalifin horta reerka nala xidhiidinayaa waxyaabaa waxaa jiray magaalada hargeysa aan ku qabi jirnay laakiin maanta in laga soo yargudbay oo horey loo soo sikaday aad baan ugu faraxsannahay marka maanta in annagii reerkii naloo abtiriyey oo aan nala lahayn isi sheega iscaddeeya aad baan ugu faraxsanahay reerka calaa kulli xaal xididkii jira qaraabadii jirta reerka aanu dhisnana reerna xariiriya allaha ka dhigo reerkana waanu ku ducaynaynaa dee kaftan xididka oo asagoo aan kaftan kuu bilaabinna kiftan looba bilaabo marka dee annagu kaftami mayno wabilaahi towfiiq salaamu ullahi calaykum marka hadda waxaan leeyahay doctor carabeeto oo isagoo xamarna wax badan joogay marka xildhibaan doctor carabeeto weeye ninkani way salaamu calaykum dhammaan mudanayaasha boqorada salaadiinta caaqilada dadka kale intellectualiska ah ee meesha isugu yimi aad baan idiin salaamayaa waxaad mooddaa waxaynu isugu nimi uun arrin diiniya oo ah inaynu reer dhisno dee duca mooyaane wax kale kama bannaana labadii ilaahay isku baarigo ilaahay isu soo dhoweeyo reerahana isu soo dhoweeya ilaahay ha ka dhigo haddaan xoogaa ku darsado ugaasku wax badan buu tiriyey iyo meelo badanuu dee wadagalay oodana hala fogeeyuu yidhi waxaad mooddaa sabankan aynu ku jirno markay noqoto habar gidir iyo habar yunis ba isguursaday inay dadka ku culus tahay marka hadalkaana hoos inoogu dhiga oo yuu kor inooga duulin gabagabadii aynu meherka iyo xilligiisii inoo dhammaaday qadada hoolka lagu qadayna waan intus doonaa laakiin qof kasta kaadhkiisa ha haysto haddeerna ducadiiba aynoo hadhay
marka dee sheekhan u dhiibaya suu inoogu duceeyo dareenkayga waxaa weeye marka hore horta dhinacan bidixda waxa iga xiga abtiyaashay baa iga xiga aniga abtiyaashay baa waxaa halkaa soo fadhiyan waa wada abtiyaashay aniga muse ismaaciil baa dhalay sheekh maxamed siraad ina sheekh maxamed siraad ayay dhashay marka abtigay waa ka halkaa fadhiya jiif caaqilkii mee iyo ragga kale oo dhan haa marka horta intaa waan u sheegayaa golaha halkanna waxa fadhiya midigtayda reerayeeyahay oo faqashinibay reerayeeye ah marka qoladaa habargidirna way reerayeeye qoladaasina way rarabti marka horta maanta aniga farxad gaara ayay ii tahay aad iyo aad baanan ugu faraxsanay labadaydii garab oo qolo waliba ay i ballamisay inaan halkan meherkan aan caqdiyo ilaahayna waxaan ka baryayaa isagaa kariimahe inuu maalinkaa maanta ah qoyskaa cusub ee inoo soo biiray qoys barakaysan oo ilaahay uu siiyo awlaad barakaysan ilaahay ha ka yeelo ilaahay waxaan ka baryaynaa xiditinimo iyo xigaalnimo hor leh kuwa soo kordhiya allaha ka dhigo ilaahay waxaan ka baryaynaa kuwa lagu badhaadho if iyo aakhiraba allaha ka dhigo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu guurkaa sharaf kale milkada leh ilaahay ee kii la arki jiray ilaahay ummadda u soo kordhiyo oo xidhiidhkus intii uu ka bato labadan reer awalba waa la isku xaman jiraye ilaahay taana ha inoo taabud yeelo allahuma salli calaa maxamed subxaana rabbika aad baa u mahadsantihiin waxaan idiin sheegayaa un rasmi dhaayaha rida eegmada kula raaca ku riyaaqe inaad raysiyo laan rumaano obaylaydho ay ruxayso qurux lagu raray ama raalliya raad qabow tahay ama raalliya raad qabow tahay waan rumaysnahay inaad raysiyo laan rumaano obaylaydho ay ruxayso qurux lagu raray ama raalliya raad qabow tahay ama raalliya raad qabow tahay waan rumaysnahay dunida raaxiyo rayrayn ku jiro barwaaqa raxmaan rugtaada ka yeel raxmaan dunida raaxiyo rayrayn ku jiro barwaaqa raxmaan rugtaada ka yeel raxmaan rasmi dhaayaha rida eegmada kula raaca ku riyaaqe